الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. runtii horta waxa weeyaan komishanka doorashooyinka qaranka hawl culus baa saaran inay diiwaangelinta qabtaan iyo doorashooyinka waan ku sugaynaa muddana waanu kala shaqaynaynaa sidii arrimahaas u qabsoomi lahaayeen hadda waxaanu isla dhameynay arrintii technicalka ahayd oo ahayd diiwaangelinta sida ay idin sheegayna runtii waanu la qaadanay waanu ku kalsoonahay waxaan waan ku kalsoonahay waxaan waliba aan u soo jeedinaynaa inaan timeline-ka hadda aan isla dhameynay aan isla saxnay inaanu xiriiraha iska istaagno oo sida ugu qabsoomi lahaa iyo sida u hirgeli lahaayeenba aanu falgooda qaban aanu xiriiraha ka istaagno arrinta 26 June waad ogeydeen wiigii hore waxaan isla wada qaadanay anaga iyo xisbiga kale wadani iyo odayaasha madashiba mowqif cad baan iska istaagnay 26 June wixii ka dambeeyay wixii laga yeeli lahaa arrimaha doorashooyinka marka baabkaasi mowqifkayga iska bedel wax uu ka bedelaya ma jirto laakiin kan aan isla qaadno waa kii diiwaangelinta waanu ku kalsoonahay insha Allah billahi kaliim sagaalka bilowda ay imika qabteenna way nagu dhameyn doontaa laakiin wada cadaysan doorashadu way cadday inaan 26 June qabsoomahayn waxaanu ka yeelanahayna waana kii gudida u saarnay anagii labada xisbi kale mucaaradku aad baan ma santa Cabdirashiid Raac waxa weeyaan wuxuu hadlaya isagu xisbiga wadani بسم الله الرحمن الرحيم sida la idin sheegay komishanku wuxuu noo soo gudbiyay timeline lagu qabanayo diiwaangelinta waxay noo sheegeen 3 bilood inay diyaar garow ugu baahan yihiin qalabkii iyo diyaar garowgoodii 4 biloodna doorashadu soconayso bil rabad diiwaangelintu soconayso bil rabadaana ku dhex jirto bil lagu kilin gareynayo micnaheedu waxa weeye bisha July ilaa November ay hawsha ku dhameynayaan waa diiwaangelintii waa ku talagalkii waa sida ay komishanku noo soo gudbiyeen doorashada dib ay u dhacaysaa 26 June bay inay qabsooto waa muuqataa inay dib u dhacaysay ma aqbalsantiin mise ma aqbalsantiin doorashadu maanta dub ma dhicin hore dib loogu riday maaha maanta su'aasha ku weydiin ma aqbalsantiin mise xisbiyaha waddan ma 26 June qaranku maaha komishanka qaranku komishanka waa ka ballaaran yahay komishanku hawshoodii bay noo sheegeen oo qabsanayaan 26 June tala qaran baa u taala qaranka doorashadu haday dhici weydo tala qaran baa laga gelayaa halkeeda tala qaran marka tala qaran waxa weeye la isugu imanayaa waa la isugu imanayaayo miiska la isugu imanayaa jaamac shabeel waxa weeye goliyaha golaha dhexe doorashada hadda ma xisbiga doorashada gaadhsiisa ayuu dalku yeelanayaa insha Allah inaka hadal booda madu ka haysan foodan ka maqlayseen waxay bilaabmaysaa diiwaangelintu fulay dabayaaqada ama bacda ramadaanta waxaa la soconaysaa ilaa November qorshaha waa la isla qaatay xisbiga isla qaateen siyaasad kula shaqeynaya komishanka isagoo tafaasiil bay soo dhigeen oo maalin shaqada la qabanayo saasaa la isla qaatay hawshtii waa gelinta saas ku soconaysa laakiin doorashada dib u dhaceeda iyada ka waran sidoo aragtaa doorashada dib ilaahay baa dib u ridaynayso taas ka dhacday marka idinka kulmiyahaan markaa waad soo dhaweynaysaa maanahu annagu haddii berri la yidhaahdo diyaar baanu haddii 2020 la yidhaahdo diyaar baanu saacaddii la yidhaahdo diyaar baanu waxaana ku xidhanta shaqada halkan midna waan idin sheegaya waxaa nafta inoo keenay waxa weeye Soomaaliland marka la eego waa diiwaangelinta doorasho kasta waxa argusho ee wareeriya waa diiwaangelinta maanta komishankani waxay ku talabsadeen talaabo aad u wanaagsan oo ay rajeynayaan annaguna loo rajeynay inay dhaxal reebto oo maruu laga gudbo sheekadan diiwaangelinta doorasho walba diiwaangelinta laga hadlayo hadday taasi maanta sidaa qorshe ay u soo dhigeen oo alla inoogu qadaraysaa u dhacdo waxaan filayaa uu doorashada waqtigeeda ka dhici doonto dib uga dhici doonta ma jiri doonto هذا